بسم الله الرحمن الرحيم. dunisha mareer lagama waaye waxaa jirta sheeko caan ka ah adduunka taas oo ay yuhuuddu ku xusay kitaabkooda dhalarogan sidoo kalena buugaag badan laga qoray filmaan iyo riwaayadana laga matelay sheekadani waxa ay ku saabsan tahay gabadh la odhan jiray daliila iyo odaygeedii shamshuun ama inankii cadceedda inkasta oo uu ninkani ahaa mid ka mid ah raggii talin jiray casrigii guurtida taas oo aynu ku soo aragnay taxanaheennii taariikhda reer banu israa'iil waxaa hubaal ah meeshana ku jirta in ay yuhuudda sidii awalba caadada u ahayd ay sheekadan buunbuuniyeen aadna ay u waaweyneeyeen haddaba innaka ujeeddadeenna oo keligii waxa ay tahay in aynu ka warranno qisadaas iyo sida ay u dhacday amaba aynu aragno inta ay leeg tahay khiyaanada ay daliila ku samaysay odaygeedii shamshuun ama shamcuun waxa uu ahaa nin aada u xoog weyn oo aan 100 nin kadinka uga baydhin waxa uu ahaa geesi cadowgiisa ku noqday laf dhuun gashay sida oo kalena waxa uu ahaa diric aan hubka iyo faralaabku dhiiranaan kusoo kordhin waxa uu ku kalsoonaa xooggiisa iyo awooddiisa jidheed habar dugaagu baqdin kuma aysan abuuri jirin waxa badanaa la arki jiray isaga oo kaga takhallusay libaax ay dadkii kale ka maageen shamcuun oo mar joox dhex maraya ayaa waxa uu maqlay gurxan iyo hiraag gadaal markii uu eegayna waxaba uu arkay dawri aad ama libaax weyn oo kusoo haliilaya dhankiisa una soo ordaya kaas oo hilbihiisa usoo micilisanaya baqdinimo aysan gelin shamcuun oo markiiba waxa uu galay difaac adag sikimo yar gudaheediina waxa boodh iyo uura ay ka kacday halkii ay isku galeen libaaxa iyo shamcuun waxa ay legdamaan oo ay isla baaxaadegaanba ugu dambayntii waxa uu ku guulaystay inuu libaaxii darayo ku baktiyo beryo kadib ayaa uu mar kale isla meeshii soo maray shamsuun waxa uu arkay libaaxii uu berigii dilay oo ay lafihiisii meesha yaallaan kolkii uu u soo dhowaadayna indhihiisu waxa ay qabteen libaaxa lafihiisii feedhaha oo ay shinniyi malab ka samaysatay waxaana uu u howlgalay sidii uu malabkaas ula soo bixi lahaa shamcuun waxa uu ku soo noqday gurigoodii waxaana uu yimi iyada oo aabihii uu 30 nin casuumad u fidiyey 30 ninina waxay ahaayeen raggii ugu mudnaa magaalada uu joogay waxa uu shamcuun odayaashii ku yidhi xujo ayaan idin weydiinayaa waxa aan jaanis idiin siinayaa 7 maalin haddii aad garataan waxaan bixinayaa 30 isku joog oo marya ah haddii se aad garan weydaan waxaad isiin doontaan 30 isku joog oo marya ah berigaasna dharku qaali ayuu ahaa odayaashii waxa ay ku yidhaahdeen waanu ogolnahay ee xalxidhaalaha soo daa kadibna waxa uu ku yidhi waxa aad sheegtaan wax cuna oo dhalay wax la cuno iyo wax adag oo dhalay wax macaan odayaashii nin waliba waxa uu isku dayey inuu xujadaas soo furo 3 caano maal markii ay ka soo wareegtay ee weli aanay helin warcelin sugan ayaa ay isku yimaadeen waxa ay ku tashadeen in ay u tagaan gabadhii daliila odayaashii waxa u yimaadeen daliila oo ahayd gabadhii uu qabay shamcuun waxaana ay ku amreen in ay u soo ogaato jawaabta xujadaas sidoo kalena waxay ugu hanjabeen haddii ay keeni weydo in ay dili doonaan aabaheed iyo hooyadeed daliila waxa ay u timi shamcuun inta ay quruxdeedii aftahanimadeedii iyo dumarnimadeediiba kaga faa'iidaysatay ayay ka codsatay in uu u sheego jawaabta xujadaas isna sahalka haleela ayuu uga sheegay isla maalintii ayay nimankii u yimaadeen shamcuun iyaga oo ku jeesjeesaya waxaana ay ku yidhaahdeen shamcuunow maxaa ka adag lafaha ama feedhaha libaaxa maxaase ka macaan malabka aad ayuu uga xumaaday shamsuun in ay gabadhiisii khiyaantay oo ay xalxidhaalihii ka furtay xanaaqaasise ma uusan noqon mid sii waaray maxaa yeelay daliilah quruxdeedii iyo dhegarteedii ayay ku gacan gashatay shamsuun waxaana ay ka dhigtay qof marba sida ay doonayso ay u qaabayso haddii aad ka mid tahay daawade saaxiibada ku xidhan taxanaha taariikhda yuhuudda ee kasoo gala channel kenan waxaad og tahay waqtigaa uu shamcuun noolaa in ay ahayd xilligii ugu dhibka iyo colaadaha badnaa reer banu israa'iil haddaba dagaaladaas joogtada ah waxa uu shamcuun ahaa mid ku labaysa keligii ayaa 100 nin u babacdhigi jiray oo kaga takhallusi jiray waxaana ay tani dadejisay inuu kolkiiba caan noqday magaciisii iyo geesinimadiisina ay shaac baxday waxa kale oo ay u siyaadisay cadowgiisii inkasta oo uu ahaa nimaanu cadowgiisu kusoo dhici jirin haddana shamcuun burkaba bahalkama uu filanayn mar qurana isma uu odhan gabadha aad guriga wada joogtaan ayaa ku shirqooli doonta cadowgiisii waxa ay u yimaadeen daliila waxa ay ku yidhaahdeen haddii aad noo keentid sirta ka dambaysa awooddiisa waxaanu ku siinaynaa dahab iyo fido aada u fara badan daliila iyadoo oo sindhiqsanaysa aadna isku soo qurxisay ayaa ay u timi shamcuun waxa ay araggiisii ku indhasarcaadisay quruxdeedii dhaladka ahayd iyo weliba quruxda ay soo huwisay haddii ay tahay xariir ay soo xidhatay amaba dahab ay soo kashatay waxa kale oo ay u dhigtay dabin kasta oo uu ningeli lahaa
ugu dambeyntiina waxa ay ka codsatay in uu u sheego sirta ka dambaysa awooddiisa iyo waxa baabin kara awooddiisa. inkasta oo uu ka meermeeray haddana way ku khasabtay in uu uga warramo, waxaana uu ku yidhi haddii ay cadowgaygu igu xidhxidhaan xadhko adag oo aan hore loo adeegsan oo baro ah, awooddaydu way baaba'aysaa, waxaana aan la xoog noqonayaa dadka caadiga ah. umaba ay kaadidnine waxa ay warkii u geysay cadowgeedii, iyagiina xadhig adag ayay u soo dhiibeen oo markii uu Shamcuun seexday ayaa ay ku xidhxidhay kuna geejisay. intii aanu cadowgiisu u iman ka hor ayaa uu toosay Shamcuun. qunyar oo dhalatay ayuu istaagay, kadibna xadhkihii si fudud ayay u go'go'een oo iniba meel rushay. maalmo kadib ayay daminkeedii dhigtay, laakiin kolkan waa ay iska oohisay. Shamcuunna waa ay u duday, isna kama uu fogaane waxa uu weydiiyey waxa helay. iyadiina waxa ay ku tidhi ima jeclid, maxaa yeelay waadigii maalintii dhoweyd beenta ii sheegay. inta uu yaabay ayaa uu isku dayay inuu qanciyo, waxaana uu ku dooday inuu jecel yahay. iyadiina waxa ay ku xujaysay haddii aad jeceshahay bal ii sheeg iminka sirta awooddaada ka dambaysa. inkasta oo uu haddana isku dayay inuu ka meermeero kana galgasho jawaabta saxda ah ee ay weydiisay, ugu dambeyntii xaqiiqada ayaa uu u sheegay. waxa uu ku yidhi sirta ka dambaysa awooddaydu waa timahayga dhaadheer, haddii ay iga jaraan ruudkaygu waa uu suulayaa. habeennimadii markii uu seexday ayaa ay timihii ka xiirtay. nasiib darro waxa uu noqday mid bilaad itaal ah oo xataa aan awoodin inuu istaago. cadowgiisii inta ay kaxeeyeen ayaa ay laalaadiyeen lana aadeen dhulkoodii, waxaana ay u bahdileen suxun oo inta ay jeel ku rideen ay ku odhan jireen qamandida nootun. meel kasta waxa ku baahay warkiisii. cadowgiisiina waxa ay damceen in ay ceebeeyaan. waxa ay dadkii oo dhammi isugu yimaadeen qasrigii boqorka, waxa ay dhigteen xaflad weyn oo ay ugu dabaaldegayaan in ay cadowgoodii Shamcuun kaga takhalluseen. inta ay soo hogaamiyeen ayay ku khasbeen inuu ka hor jaaso, isna waa uu sameeyey. cabbaar markii uu ka hor ciyaarayay, iyagiina ay sarkhaameen oo uu khamriga gaadhay, ayaa uu qunyar ugu soo dhaqaaqay dhinacii ay ku yaaleen labada tiir ee qasriga ugu adkaa. dabcan tirar badan ayaa uu lahaa, laakiin labadii ugu muhiimsanaa ayaa uu ag yimi. maalmihii uu xidhnaa Shamcuun, inkasta oo aanay dhaadheeraan, haddana timo waxooga ah ayaa u soo baxay. awood yarina waa ay soo gashay. Shamcuun inta uu labadii tiir dhex istaagay ayaa uu midna gacanta midig ku qabtay, kii kalena uu gacanta bidix ku qabtay. kadibna isagoo eebba baryaya ayaa uu midba dhan u cadaadiyey ama u riixay ilaa ay ka burburayeen, waxaana ay tani sababtay inuu qasrigii dumo. dhammaan dadkii ku jiray oo uu Shamcuunna ka mid yahayna ay ku dhinteen meeshii. daawadeel waxaa suurtagal ah in ay buunbuunin iyo kabadbadaniba ay ku jirto sheekadan. warar kasta ay yuhuuddu inoo sheegaan beenaysanna mayno, rumaysanna mayno.